افتنك أنا برنو أخرسكي أخونتا أنو قادنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرديدنا وحرجينا إن كلينا عافمات قبطان وحروي الموضوع أنا مخال كان ما أنت إن كجا هذا الله ويا جرافيك ديزاين أما سيد الله استعماله أما سيد عن كوبران كرنا أما تخصص كاسي ويا تولز كمركاسي naga kaalmeyn karo inaan takhasuskan aan barano horta maalmahan badan saafilayo inaan maqashiin barnaamijkan oo ama takhasuskan graphic design oo meel badan laga soo xayeysiinayo shirkad walbo oo ha noqoto wax walba shirkadda ha sameyso ama iskuul ha noqoto ama muassas ha noqoto meel walbo barnaamijkan ama takhasuskan waa loogu baahan yahay waana aad loo isticmaalaa sanadkan ama digital media barnaamijkan sidoo u soo kordhay oo social media marka graphic design ka ujeedada ugu weyn oo markaasi loo adeegsado waxay tahay waxa wax artist ah waaye si markaasi loo abuuro muuqaalo oo qofka markaasi soo jiidasho leh muuqaaladaas marka waxa ay sameynayaan waxay tahay fariin ay gudbinayaan marka muuqaal aan ku dhahay video kama hadlayo waxa weyn aan ka hadlayo waxa sawiro ama magazines ama brochure markaasi la faafinayo ama flyers aan noqoto ama warqado kulli waxa loo adeegsado waxa waaye markaasi graphic design ka loo adeegsada waxaase marka ha noqoto wax oo insaani ahaan ina u gudbinaysid ama xayeysiin ahaan ina gudbinaysid ama website ahaan ina u gudbinaysid ama daabacitaan ahaan ina wixii markaasi aad daabacaysid ama wixii branding ahaan oo shirkad markaasi aad u sameynaysid way u baahan tahay barnaamijkani oo graphic design ka uu yahay marka graphic design ka waxyaabo badan la sameeyaa waxay tahay ama meel walba ku arkay maanta kaliya xaafadda ka baxdid oo wadada ugu soo horeysa aad gashid graphic design ka arkay waxa ka arki kartaa boorarka ka arki kartaa marka ka soo qaad maanta kaliya aan rabo inaan ganacsi aan sameysto ama meherad inaan markaas aan furto waxa ugu horeeyo markaas maskaxdayda ku soo degdegay waxay tahay in boor aan sameysto boor aan ku dhigsado boorkaas cadeynay meeshaan wax ima inay noqoto meheradaasi meherad oo farmashi inay tahay ama inay tahay markaasi meel oo ganacsi ama saliid ma lagu gadaa ama bagaash ma lagu gadaa ama dhar ma lagu gadaa waxaas dhan marka qofku soo ku ogaado waxa uu baahan yahay waxay tahay in markaasi loo sameeyo boorkaasi qofka sameynaya waxa laazim inuu noqdo waxa graphic designer inuu noqdo marka sababaan ku sheegay ama takhasuskani uu aad ugu maarmaan u yahay suuqana uu aad markaasi u yaalo marka qofka waxyaabaha uu baahan yahay aan rabnaa markaasi maanta inaan kaga hadalno marka waxay ku sii faahfaahinaa wili hadaadan fahmin fikrad guud aan waxyaabaha lagu sameyn karo graphic design waa muddo waxaan sameeyay waa kanaad fiir meeshan magazines oo kale magazinekan waxa lagu sameyn karo waxay tahay graphic design oo ana sameeyay sidoo kale fiir hadda sawirkan oo kale hadaan furo markaan sawirkan hadda maanta hadaan furo wajida dhowr sawir meeshan isku jiro waan combine gareynay waxaan ka soo saarnay sawirkan ka soo saarnay marka hadafku wuxuu yahay in fariin markaasi aan gudbino fariintan gudbino waxa waay qofka marka intuu ilaahay ugu kalsoon yahay waay fiiri sawirkan qofkan kaliya u jeedid maxaa laga sameeyay waxa laga sameeyay wuxuu yahay intaanoo sawir markaasi aan isku dardarnay ayaan ka soo saaray qofkaasi sidoo kale tusaale kale adeegsan ka aan ku tusin karo waxa magazinekan markaasi aan u sameeyay jaamacadda umada magazinekan asina waxa markaasi aan u baahan tahay waxa magazine aan u sameeysid laazim waxa ina graphic designer aan noqotid waay fiir marka magazinekan aan ku tusiyo وجد أمانه مجازين كان صفحة وجوريس وهاي صفحة داني وكان بيجش وجوريه ومركاسي كل waxa lagu sameeyo xitaa graphic design marka toolska lagu sameeyo kulli waan ku tusinaya oo barnaamijkan sidoo kale tusaale aan hadii lacala arabtid calendar oo kale ina sameeysid oo sanjaacad wadan u sameeyay 2019 kan sameeyay waa kana marka wax weyn u baahan tahay xawaay ina graphic designer aan noqoto marka fikrad walba maskaxdaada ku soo dhacdo waa fulin kartaa ama waa sameyn kartaa in logo hada markaas shirkad markaas aad sameynaysid hadii lacala logo markaas u baahan tahay logoyinka waa u baahan tahay shirkad walba waxay u baahan tahay wax lagu garan karo oo ganacsigeeda markaas aad doodin brand u noqon karo waa kana mujida logada intaan ka bilaabay kooda sketch aan sameeyay kadib waa kana sabkanan u soo saaray logadaani oo mid walbana wax u taagan kulli waxaan ku sameeyay graphic designer laazim inaan noqoto flyers kan ujeeda fariimo nooc arta gudbin kartaa wax barasho ah ama fariimo aad ku qosayada fariimo diiniya gudbin kartaa waxaan kulli waxaan ku baadaa brochures kana ujeeda وانا بروشور كان waxaan u sameeyay macadkan marka kulli marka waa wax afriim aad gudbin kartid waa marka waxa u baahan tahay waxa marka graphic designer inaan noqotid marka su'aal isweydiinta mudan ah waxay tahay marka hadaan rabo inaan graphic designer aan noqdo maxay tahay barnaamijta inaan barto ama inaan ku takhasusay tahay waa kana marka hadaan afoognay waan ku diyaarinay koorsooyinka markaasi ka kaalmeyn karo inaa noqotid graphic designer
waagana marka waxaan leenahay qaybtaani oo ah takhasuska graphic designer waxaa u baahanta marka saddexdaani barnaamij inaad ku takhasustid waaye ama inaad markaasi aad baratid waaye anagana marka hab fudud ayaan markaasi aan kuu baraynaa iyadoo chapter aan u sameyna cashar aan u sameyna sidoo kale imtixaanaada gele sidoo kale practice oo markaasi waxa practice garaynaysa jirto oo macalinka uu ku ogaanayo oo macalinka waxaa anaa markaasi saddexdan koorsab aniga diyaariyay saddexda koorsana waxaan u diyaariyay ardayga markaas inay u fududaad ku dhawaad barnaamijyadaani waxaan ku dhex jiraa in ka badan 15 sano ayaan ku jiraa oo ku dhawaad waxaan bilaabay 2008 meelahaas ka horan bilaabay marka waa barnaamijyo aad aan u bartay oo aan rabo markaas khibradeeda inaan kugu soo gudbiyo waxaan ka bilaabi kartaa markaas adaabta takhasuskaani ama road mapka aad raaci kartid haddii muhiim aan haddii intaa ka baritid ama meel kale waa ka baran kartaa ama youtube ka raadin kartaa laakiin anaga sida weyn ugu habeen waxay tahay si ardayga markaasi tashwiish uusan u gelaynin oo si fudud casharka markaasi u qaadan karo oo kuwiisin laga qaadan karo sidoo kale wuxuu su'aal uu qabo markaas uu weydiin karo sidoo kale projectyaan u diraa projectyada markaasi waxa uu soo saaro kadib uu isoo gudbinayo marka barnaamijka ugu horeeyaan kula talinayo waxaa barnaamijkaani oo photoshopka waxaa loo adeegsadaa badanaa wax digital ahaan daartid inaad facebook waxaa gelisid ama daartid daabacitaan ahaan hadda u adeegsan kartaa oo wixii markaas inaad print garaysid marka barnaamijkaani ku dhawaad intaasoo sanaa ku jiray oo aan baranayay sidoo kale aan ardaydeeda markaas aan sii baray ardayda saxaafadda aan u dhigo jaamacadda ummadda sidoo kale arday badan ay kasoo baxeen ayna si fiican u barteen marka waxyaabaha kale barnaamijkan oo adeegsan kartid wuxuu yahay in muuqaalo markaas ama sawiro markaas inaad ku gudbisid marka barnaamijkan waxyaabaha kale inta loo adeegsanayo wuxuu yahay lacala haddii sawir isawirtid sawirkaasi uu qalad ka soo baxo kasoo qaad micnaha gadaashiisa qof kale aadan rabin taagan ama waxyaabo ama item ama object markaas aadan u baahnayn ama subject u baahnayn ku jiro wixii inaad rabtid inaad ka siibtid ama inaad ka delete garaysid waxa markaas adeegsanaysid waxaa photoshop ka adeegsan kartaa sidoo kale sawirkaas aad soo sawirta colorskiisa wax ka qaldan colorskiisa rabtaa marka inaad badbadashid waxa adeegsanaysid waxaa photoshop adeegsanay haddii artid dhowr sawir rabtaa markaasi ina markaas isku dirtid a message markaas ama fariin aad abuurtid sida hadda aan kuu soo sheegayo markaan kuu soo sharaxay waxa markaas ama compositing aad ku sameyn kartid wuxuu yahay photoshop sidoo kale digital painting ka loo adeegsada retouch wax micnaha daarta fifin meesha dukaasaba wixii inaad wada qurxisid lacala sawiradan oo kale oo portrait-ka oo kale barnaamijyada lagu sii qurxiyo waxa photoshop iyo lightroom-ka si inkastoo barnaamijkan professional aad u weyn u yahay dhowr waxna u adeegsan kartid sidoo kale barnaamijka labaad aan kula talinayo waxa barnaamijkan waa illustration ama illustrator-kan illustrator-ka asiga waxaa barnaamij oo vector ahaan waaye marka barnaamijkan wax loo adeegsadaa wuxuu yahay adaartid logoyin inaad soo saartid adaartid inaad markaasi icon micnaha shirkad walbo ama muasasa walbo ama meherad walbo waxay u baahan tahay waxaa loogo lagu aqoonsan karo anaga hadda afooga ahaan waa kana ujeedaa loogadeena waxa aan ku sameynay wuxuu yahay illustrator-kanan ku sameynay hadda shirkad walbo jirtana logooyinkeeda iyada lagu sameeyaa oo illustrator-ka asaa ugu caansan oona ugu muhiimsan haddaa baratidna wax badan uu kaa tarahay markaasi sidoo kale waxyaaba ku sameyn karta waxaa typography inaad wax ku draw garaysid cartoons haddaa rabta inaad draw garaysid kulli waa ka arki kartaa marka waa ku diyaarinay waxaan kulli habka ku micnaha logo sameyn leed waa ku jirta asoo practice ah sidoo kale habka markaas cartoons wax isku sameyn leed asoo practice ama project aad sameynaysid ayaan markaas ku diyaarinay sidoo kale ku imtixaanaysid imtixaanaad aad gelaysid oo lagu weydiinayo su'aalooyin ana ku weydiinayo haddii su'aal qabtid markaas aad isoo bandhig kartid aan kaaga jawaabay marka illustrator-kan waa sidoo kale waxyaaba kale aad ku sameyn kartaa waxaa infographic waa barnaamij asina suuq wanaagsan leh oo aadna loogu baahan yahay dalka iyo dibadiisa infographic waxaan ka wadnaa micnaha waxyaabo data aad u badan oo ku dhawaad adiga 5 page ah adigoo kusoo koobaysid hal warqad ama hal page kusoo koobayo adigoo markaas u sameynaysid wax visual ahaan ama muuqaal ahaan aan aragti ahaan marka waxaan kula talinaa inaad google geshid oo ku qortid infographic kadib si toos ah ama si fudud ayaa u arki kartaa waxa markaas aan ka wado infographic waxyaaba kale oo adeegsan kartid waxaa inaad print design micnaha designada la print gareynayo sida boorarkaan master card-kan iyo sidoo kale business cards-kan iyo posterskan kulli posterka photoshopna waa adeegsan kartaa oo photoshop inta waa adeegsan kartaa sidoo kale illustrator-kana waa adeegsan kartaa sidoo kale business card photoshop waa ku sameyn kartaa illustrator-na waa ku sameyn kartaa hadda InDesign waa ku sameyn kartaa marka waxyaabahaas iyo waxyaabo ka badan loo adeegsanaa anagana koorsooyinkan kulli meesha aan saddexdan course aan kuu soo dhigay waa ku tadbiiqin kartaa waa huwa saddexdan course haddaad dhigatid inaad noqon kartid professional oo graphic design micnaha barnaamijyadaas kulli min bidaa ila nihayan ku bara hab academic ahaan oo aanan isdhexyaac lahayn oo wax walba chapter walba markaa ka baxid su'aalooyin lagu weydiinayo sidoo kale projectyo aan ku diray projectyada aad kasoo shaqeynaysid marka hab oo nidaamsan oo arday badanna ay ka aflixeen fiir haddaan hadda intaan ku dhuftay intaasoo arday oo arkay oo iyo micnaha commentiyo markaas ka dhiibtay fiir haddaan dhufto
sidoo kale intan hadaan ku dhufto dhowr arday markaas aan ka tusin karo hoos fiir haddaan hoos aan u baxno qaybta commentska waay ujeeda dhowrkan arday ujeediin way qaateen ujeeda Cabdicasiis Nuurdiin Cumar waa isagoo dhaha koorsaan waa koorso waxyaabo badan aan ka faa'iiday waa kana sidoo kale aan ardaygan kala Cabdifataax kale oo Photoshop kan kulli intaan comments marka aad si akhriso ardayda feedbackooda iyo falcelintooda okay intaan ka sii bixin sidoo kale illustrator-ka aan ku tusiyo iyagana ardayda jawaabaha markaas ee comments ka dhibteen waa kana Maxamed Saciid oo kale sigoo dhahay mahado idil eebay u sugnaatay intaan kadib waa mahadsantiin dhamaan baahda afooge marka adiga si akhriso waa kana Shucayb asina commentigan quruxda badan u dhiibanayo Luqmaan iyo kulli marka intaas oo arday aan hadda alla soo koobi kana ku tababarnay marka commentiga qaybta commentiga ka fiiri ama ardaydan kulli waxa ay ka dhaheen ama commentiyadooda markii taanan ka bixin marka aan ku tusiyo sidoo kale inta InDesignka waxa markaas lagu qabtay InDesignka waxa asina page layout waay adigoo markaas ku sameynayo magazineska daartid magazine ina sameysid magazine waxa adeegsanaysid waxa waay InDesignka waay sidoo kale daartid markaas ina sameysid book ama report ina diyaarsid aad qurux badan waxaan ku sameynaa markaas InDesign sidoo kale adaartid interactive oo PDF oo buttons leh markaas la taataabanayo oo sidaas waxyaabo adaartid inaad bartid InDesignka ayaa markaas ku sameyn kartaa laakiin course-kan hadda kuma saabsan course-kan wuxuu ku saabsan yahay basic ila heer dhexe arabna markaas inaan kugu geeno hadda marketing adaar sameynaysid flyers-kan iyo newsletter-kan iyo brochures-kan waxyaabahaas kulli waxa aad adeegsan kartid waxa waay InDesignka asina project-yaan sameynay quiz-yaan sameynay mid walba hadda ku laabto fiir hadda Photoshop hadaan tago qaabkan u sameyn waa kana quiz-yo wuxuu leeyahay qaybta kore inta ila fiiri waa ujeeda 12 chapter 54 lesson oo aan ku hagar baxayo waxa uu yahay markaasi iyo sidoo kale inta 7 quiz oo ujeeda 7 quiz ugu dambeeyna shahaada hele sidoo kale meeshan illustrator-ka asina waa kana koraan u balaabto waa 12 chapter 68 waa iyo 2 quiz markaas aad galaysid oo aan kugu imtixaanayo hadii wixii aad fahamtay aad kale sidoo kale project markaas aad sameynayso ujeeda real world project aan sameynay dhowr project markaas aad ku practice gareynaysid wixii markaas aad soo fahamtay assignment-yo aan ku direen waxaasi sidoo kale InDesignka asina waa asina sidaas oo kale oo adina asina lagu imtixaanayo asina waxa waay 13 chapter iyo wuxuu ka kooban yahay wuxuu yahay 7 lesson iyo quiz oo asana u wata markaas marka waan idin kula talinaa markaas hadii koorsadaani ka qayb gashid in wax badan ay ka faa'iidi doontid sidoo kale hadii markaas meel kale ka dhigta daaw ah waa in wax badan ay ka faa'iideysid marka insha Allah aniga waa ku dadaalnay in course-kan markaas uu noqdo in course-kii oo ugu dambeeyay markaas takhasuskan aad ku baran kartid ama kaga qalin hada ka qalin jibisid wax badan aad ka faa'iidi kartid marka waan kula talinaa inaad ka faa'iideysatid waqtigaada sidoo kale takhasus ama xirfad markaas aad ku kordhisid noloshaada iyada markaas wax ku tari doonto waqtigaada marka aad ugu faa'iideysta marka aadaan idin kaga mahadcelinaa dhageysigiina iyo la socodkiina aad u mahadsantiin السلام عليكم أشركنا كأكنو أقبلوا معلمين توالدكنا أدينو الله معلمكنا كان الله كان أخيرياتك الله كان إنك شبه هيليو الله كان قالونا أبنايا أرضيا قنتم واسدي إليس واسدا أرورتيو أكتوا بركي أرضيا قنتم واسدي إليس واسدا أرورتيو أكتوا بركي إرما وين كله أبد بمالو أقبل معلمين تاو والدكنا أدي إرماوي نكله أبد بمالو أقبل معلمين تاو والدكنا أدي الله معلمكنا كان الله كان أخيرياتك الله كان إنك شبه هيليو الله كان قالونا أبا بنايا